waxay la imaanayaan axaadiis iyo warin ay soo wariyeen nebi moxamed ay ku tilmaamayaan horeyna aanan u maqal waxay la imaanayaan tafsiiraad aayado qur-aan ay tafsiirinayaan iyo sharax fara badan oo kala dabagidisan markii aan dib uga laabtana aanan helaynin meelaha ay ku tilmaameen waxay leedahay kutubta tafsiirka xaqiiqda aan garanaya ayaan isku kallifay inaan ka helo waan ka waayey waxaan galay bay leedahay barnaamijkii baaltooga waxaan ku galay buusi 1882 ayaan ku galay aniga ayaa kaalinta igu timid oo qolka dadkii ku jiray waxa ay jeedinayeen kelimado waxaa laygu yidhi waa markaaga hadal waxay leedahay magii baan kor u soo qaatay waxaan idhi waxaan jeclahay ilaahay waxaan u hilowsanahay ilaahay laakiin ma garanayo meeshuu iga jiro iyo meesha aan ka heli kara iyo xaqiiqda meelay tahay jidhkaygii buu gilgishay markaa erayadaa isaga ku hadlay waxay leedahay dhab ahaantii waxa gudahayga ku jira ayaan markaa isaga sheegaya ee jahwareer iyo jacayl aan u qabo xaqiiqda ilaahay sida aan ku gaari lahaa waana ooyey markaan hadalka waday hadalkii waxaa iga qaatay gabadha mas-uulka qolka ka ahayd markaa isagaa waxayna igu tiri magaceeda farxa ayaa la yidhaahdaa waxay ii sheegtay laftirkeeda waxa aan dareemayay inay dareemayso horeyna muslimada ay u ahayd laakiin hadda ay kirishtaamowday markaase waxay tiri waxaan u kirishtaamooy waxaan ogaaday ilaahay inuu yidhi ii imaada aniga aaway kuwa soo daalay aniga ayaa idin raaxaynaya ii imaada waxay leedahay gabadhii farxa waxay bilowday hadalka inay ii dabciso si tartiiba ila hadasho dareenkaygana ay ii muujiso waxa ay qabto si aan bal oga yara nasta mashquulka hadalla waxay adeegsanaysay yasuuc wuu ku jecel yahay waxlaha walwelin yasuuc ayaa kuu yeerayo waxay leedahay waan ku qayliyey oo jawaab adag baan u celiyey waxaan ku idhi ma ahan waxa aan kaala hadlayo adigana kulama hadlayo oo hintayduna ma ahan inaan aniga masiixi noqdo kirishtaan noqday ma aha farxa waxay igu tiri kalsooni walba iyo deganaan ayadoo isiinayso waxaan rabaa bay tiri keliya inaan saaxiib kula noqdo dagaal kale aniga kugulama jiro waxay leedahay inaan wada sheekaysano ayaan rabaa xaqiiqdana aan kuu sheego ama adiga aad xaqiiqda ii sheegto si aan ugu qanco waxa aad wado ajir adna aad u hesho ama aniga aan kugu qanciyo waxay leedahay gabadhii zaynab ahayd mar kale haddana walwalkiibaa qalbigayga soo buuxiyey waxaan arkay gabadhii hadalkeeda sax inuu yahay ay leedahay xaqiiqda labadeenna qofka wado inuu kan kale ku qanciya ayaa habboon waxay tidhi gabadhan iyada ah waxaan ahaa gabar aada u xun sababtoo ah uma aanan dhaqaaqin bal inaan su-aalaha maskaxdeeda ku jirto ama kuwa ay soo bandhigayaan baaritaankooda xaqiiqdooda culimmada aan weydiiyo ama kutubta aan ka raadiyo uma aanan dhawaaqin waxaan keliya ku gaabsaday inaan aniga isku ekeeyo aniga ayaa cadaabka iyo balaayada maraya nimankan shakiga ay ugu abuurayaan laakiin haddana waxaan ka xumahay jaanis uma aanan haynin in aan barnaamijka baaltooga meel kamida aan ka barto qolal kaloo diinta u barto kuwan diddi ku ah si aan u soo ogaado xaqiiqda jirta ma aanan kala garanaynin baaltooga qolkii la ibaray unbaan ku dhex jiray waxay leedahay gabadhan zaynab ah waxay leedahay waxaa ila soo xiriiray haweenay magaceeda ay ku tilmaantay banaahan oo ay tidhi waxay igala hadli jirtay arrimaha masiixiyadda waxay igu dhiirigelin jirtay kirishtaanka inaan si fiican diintiisa u haysto muddo dheer markay ila xiriirtay kadib taleefonkii ugu dambeeyey ii soo dirtay waxay igu soo wacday ayadoo rikoor gurigu ii yaalla iiga shidan yahay qur-aanka kariimka idaacatul-qur'aan aan dhegaysanayo intay icaysay bay igu dambisay taleefonka markii kadibna ima aysan soo wicin saynab qisadeeda ayadoo sii wada waxay leedahay waxaa si lama filaana markii kadib taleefonka gabadha markay iga goosata igu dhacay in la iga soo waco dibadda taleefanno badan ay soo dhacaan oo aanan hore u garanaynin saaxiibo aanan lahayn maraykanka iyo canada iyo meelo lamida iga soo wacaan ay igu yidhaahdaan diinta islaamka diin ma aha tii aad soo gashay kirishtaanka si fiican u qabso oo ha ku laabanin islaamka iyo cunsuriyadiisa annagu lafteen muslimiin baan ku dhalanay laakiin markii aan ogaanay xaqiiqda ayaan galnay diinta kirishtaanka ah gabadha riihaam ahayd waxay leedahay waxay bilowday inay ila soo xiriirto xagga iyo internetka igala soo xiriirto xilligaa isaga ah waxay bareen ninka madaxda u ah kirishtaanka sidaa u faafiya ee maraykanka u nool ee magaciisa la yidhaahdo zakariya butrus wuxuu bilaabay inuu ila sheekaysto xilli walba uu soo waco wuxuu diyaar iiga dhigay safar dibadda inaan ku aado xilligaa isaga ah waxay leedahay
xiriirkiisii wuxuu ahaa kun isdaba jooga xilli walba isoo waca waxaan geli jiray netka internetka baaltood waxaan ku geli jiray magaca Muna waxaan helay inay idalaynayaan dalayn aad iyo aad u badnayn aad iyo aad u badan waxaan dareemay inay isiinayaan erayo badan hadallo badan oo ay ku aflagaadeynayaan ama colaad igu abuurayaan diinta islaamka iyo muslimiinta isagoo sheegaya ninkan Budruska ah inuu waxa uu ii sheegay ka soo qaaday kitaabka Quraanka iyo Sunnada qof muslim ah oo isaga soo hor istaagi kara kala doodi kara diinta islaamka culimada islaamka inaan laga helaynin diinta qof la doodana uusan helaynin uu ka cilmi badan yahay kulli ayuu ii sheegi jiray waxay leedahay tabardarri baa igu dhacday dhammaan markii fakarkaygu ay nimankaan hareereeyeen waan isdhiibay waxaan qabsaday bay leedahay diintii kirishtaanka ayaan si fiican u qabsaday magacayga waan bedelay waxaan u bedelay Muna Love Yesu 3 nambarka ayaan qaatay oo Muna waxay jeceshahay masiix ayay jeceshahay ah xilligaa isaga ah waxaan bartay bay leedahay internetka ku bartay gabar saaxiibadayda ah oo aad iyo aad igu dhow oo jaamacadana ila dhigata magaceedana la baxday binti Saamiriya ayaan bartay وإلى سو xiriiri jirtay telefonka xaafada iyo midka gacanta lagu qaado laakiin wali lama aanan kulmin had iyo jeer waxay ahayd tu iiga sheekaysa ilana sheekaysata sida ay kirishtaanka u qabsatayna iiga sheekaysa iyo qoyskeedii inay ka soo tagtay kadib markay ku cadaadiyeen diinta kirishtaanka inaysan qabsan karin go'aan baan qaatay way tiri adigana ha walwalin haddii reerkiina uu kaa hor yimaado ka soo tag aniga ii imow aniga ayaa meel aad seexata ku siinayo ugu dambayntii waxaan bartay gabadha ayada ah magaceeda iigu sheegtay binti Saamiriya inay tahay tii qisadeedii kusoo qortay jaraa'idka iyo qaabka ay u kirishtaamooday geesinimada lahayd kusoo qortay ayay ahayd taasoo u sheegtay haddana reerkayga in ay ka soo tagtay reerkooda kana kirishtaamooday gabdhaha muslimaadka inay kirishtaamaysana marada u duubatay waxay igu dhiirigelin jirtay ii ballan qaadi jirtay haddii aan ka soo tago reerkeenna inay isiinayso meel aan seexdo aan ku noolaado waxay leedahay anigana jacaylka aan u qabo reerkayga waalidkayga ayaa ii diidayay in aan go'aan qaato ama aan ka baxo laakiin wada sheekaysiga kadib gabadhaa in dheer muddo aan wada xiriirnay waxa ay kaliftay markii dambe in aan ilxaax iyo ku celcelin kadib inaan reerkayga ka go'o oo iigu dhiirigeliso inaan ka soo tago ayadoo indhahayso يسوع أما مسيح وحاول نكي أبجعلادا أما هو يجعلادا أنتو يجعليها كبلان إمام مدنا إنو إجهل النحريس وأن بانقاتي لما يكون أفرتي بش نوفمبر أنيقون قفنا أشيغين تلابتا أن قادريو كهر إنت آنان قادرين كوريغا كبحيتان كيسا وحان لحيريني قبضي بنت سامرية وحانا أشيغي إنا كوريغا ماي كسو تغي على الربائين الله نولاده waxay igu tiri duruufaha jira dartooda guriga nagi ma imaan kartin xilligan laakiin waxaan ku geynayaa meel ku anfaca waxay igu yeertay soorooyinkii kaniisada joogay mid ka mid ah gabdhihii kuwaasoo anigaba aan ku bartay maalkooga intaan isticmaalayay magacooda iyo codkooda unaan maqlay waxaa la ii kireeyey falayd baa la ii kireeyey si aan u dego jaamacadda xilwaan agteeda ah halkaana keligii aan ugu noolaada muddo dheer waxay leedahay guriga nagi waxaa ka soo baxay anigoo wataa dhaqaale xooga aad iyo aad u fara badan waxaan la xiriiray intii aan garanayay baadariyaal oo baaltooga ka bartay ayaan la xiriiray oo aan horay u soo bartay waxaana u sheegay inaan ka soo tago gurigeenna una baahanahay in muxuu ahaa la ila noolaado aan arko dad fara badan hareerahayga jooga cillada kuma noolaan karo waxay leedahay booqasho ayay bilaabeen way ii yimaadaan qoysaskoodii baa isoo booqanaya kaniisadaha markay yimaadaan waxay yimaadaan falaydka aan deganahay si aan cidlo u dareemin intaan lagu guda jiray waxaan bartay gabdho kirishtaan ah oo dhowra ayaan bartay mid ka mid a baadariyaasha waxa uu igu waaniyey aniga iyo dhowr gabdhood inaan hal falayd wada kiraysano halkaa aan wada degno waan samaynay sidii meeshii baan wada degnay waxay bilaabeen iyaga iyo xaasaskooda inayna soo booqdaan si isdaba jooga waxay leedahay gabadha waxaan hubaa fikradda ayada ah ee ah safarka dibadda inay ii qaadaan sida gabdhihii kale loo qaada reerahooda looga fogeeyey tu diidan inaan ahay oo ka soo horjeedo waxaana u diidanaa bay tiri sababta loo safrayo hadday tahay ilaahay raadintiisa
حقيقة إلهي يجعل كيسا